in Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Norway ayaa booliska London ay xireen kadib markii weerar midi loo adeegsaday uu xalay ka fuliyay meesha la yiraahdo Russell Square ku taala bartamaha London. Weerarkaasi waxaa ku dhimatay haweeney Mareykan waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo kale. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwali. weerarka mindida ah waxaa geystay 19 jir haysta dhalashada dalka Norway, asal ahaana ka soo jeeda dalka Soomaaliya. waxa uu dilay haweeney u dhalatay dalka Mareykanka. waxaa kaloo uu dhaawacay 5 qof oo kale oo ka soo jeeda dalalka Britain, Mareykanka, Israel iyo Australia. ninkan ayaa la tuhmayaa inuu qabay xanuunka dhimirka oo aanu wax xiriir la lahayn kooxaha argagixisada. bilayska magaalada London waxa ay sheegeen in weli aysan jirin caddaymo muujinaya in weerarkan uu xiriir la leeyahay xagjirnimo. weerarkana uu u muuqdo mid aan qorshaysnayn oo si caadi ah u dhacay. bilayska hubaysan ayaa la wacay xalay 10kii iyo badhkii fiidnimo kadib markii ninkani uu toorida ku weeraray dad ku sugnaa Russell Square, gaar ahaan beer lagu nasto oo ku dhow mid ka mida goobaha weerarada argagixisadu ay ka dhaceen Julaay sannadkii 2005. haweeneyda u dhalatay Mareykanka ee u dhimatay weerarkan mindida ah waxa ay jirtay 60 sano, waxaana ay ku geeriyootay isla goobta wax yar kadib gurmad caafimaad markii halkaasi loogu fidiyey. qof kale oo dumar ah iyo 3 raga ayaa iyana lagu daweynayaa cisbitalka, inkastoo 3 ka mida ragga markiiba ay ka baxeen cisbitalka oo dhaawacyadoodu ay sahlanaayeen. kaaliyaha taliyaha bilayska ee London, Mark Rowley, ayaa sheegay in shaqada ilaa iyo hadda ay qabteen ay muujinayso in weerarkan uu geystay qof qabay xanuunka dhimirka. waxa uu intaasi ku daray Mark Rowley in ilaa iyo hadda aysan jirin wax caddaymo ah oo muujinaya in ninkan la xiray uu ku lahaa argagixiso. booliiska ayaa goobta weerarku uu ka dhacay soo gaaray 6 daqiiqo kadib, waxaana ay ninkan ku dhufteen rasaasta cinjirka ah. kadibna waxaa loo taxaabay xabsi isagoo lagu haysto dil. duqa magaalada London, Sadiq Khan, oo ah ninkii ugu horreeyay ee muslima ee guddoomiye ka noqda magaalo madax ka tirsan dalalka galbeedka, ayaa ku dhawaaqay in la muujiyo feejignaan. waxaana uu ugu baaqay dadweynaha London inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada bilayska. Sadiq Khan ayaa sheegay in nabadgelyada dadweynaha London ay tahay shaqadiisa koobaad, waxaana uu tacsi u diray ehelada dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay weerarkii Russell Square. saacado uun ka hor inta weerarkan aanu dhicin, waxaa taliyaha bilayska ee dalkan Britain uu sheegay in 600 oo ah bilayska hubaysan ay ka howlgeli doonaan guud ahaan magaalada London. weeraro argagixiso ah ayaa 7 Julaay sannadkii 2005 lagu qaaday magaalada tan London, waxaana weeraradaasi ku dhintay 52 qof. mid ka mid ah weeraradaasi waxaa lagu qaaday bas maraya isla xaafadda uu xalay ka dhacay weerarka toorida ah. maalmo ka hor ayaa maxkamadda Old Bailey ee London waxa ay xabsi daa'in ku riday Muxyidiin Mire oo isna asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, oo weerar noocan oo kale ah ka geystay goob laga raaca tareennada oo ku taalla bariga magaalada tan London. ninkaasi ayaa markii hore la sheegay inuu qabay xanuunka dhimirka, hase yeeshee waxaa kaloo lagu eedeeyey in weerarkaasi uu geystay bishii Diseembar ee sannadkii hore ay ku lug leeyihiin kooxda ISIS. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London. booliska London waxa ay xireen wiil 19 jir oo asalkiisu Soomaali yahay oo haysta dhalashada waddanka Norway. wiilkaasi waxaa lagu tuhunsan yahay oo loo haystaa in inuu midi ku dilay haweeney Mareykan oo 60 jir ahayd saldhig tareennada laga raaco oo ku yaala bartamaha magaalada London. 5 qof oo kalena uu dhaawacay. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warkaasi la socday stuudiyadeena ila fadhiya. Farxaan, bal nooga waran wiilkan la tuhunsan yahay in uu midida ku dilay haweeneyda. cusmaan, horta weerarku waxa uu ka dhacay xalay markii ahayd 10:39 daqiiqo oo xilliga London, goobta la yiraahdo Russell Square oo bartamaha London. marka booliiska ayaa markiiba loo wacay markii wiilkan dhalinyarada ah sida lagu tuhunsan yahay uu weerar ku qaaday dad goobtaasi joogay, dhowr qof oo haweeneydaasi uu dilay. markiina muddo 6 daqiiqo ayaa booliisku ay goobtii ku soo gaareen. markii dambena qalabka dadka suuxiya taysarka afka qalaad lagu yiraahdo ayay ku rideen wiilkii markaasi oo ay qabteen. marka ciidamada ammaanku weli meesha kama saarayaan horta weerarkan inuu ahaa mid argagixiso, laakiin waxay aaminsan yihiin oo si xoogan weliba ay u aaminsan yihiin in wiilka madaxa looga jiray. waa wiilka weerarka geystay sida la sheegayo ee hadda lagu tuhunsan yahay ciidamada booliisku ay u xireen. qof goob jooga BBC-da waxa uu sheegay in wiilka uu arkaya isagoo dadka weeraraya oo weliba qaylinaya, laakiin ilaa hadda ma kala cadda sababta weerarka uu u qaaday iyo waxa ka dambeeyay. marka
ninka ugu sarreeya la dagaalanka argagixisada waddankan Britain oo isla markaana ah taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska metropolitanka Mark Rowley oo ah ninkaasi madaxda ka ciidamada gaar ahaan la dagaalama argagixisada oo saaka saxaafadda kula hadlayay xarunta Scotland Yard ee London waxa uu sheegay in hadda wax badan ay ka ogaadeen dadka dhibaatadu xalay ay ka soo gaartay weerarkaasi mindida loo isticmaalay. We now know more about the victims, and I can say that the woman who was murdered was an American national. Those injured waxa uu yidhi hadda baanu wax badan ka ognahay dadkii dhibaatadu soo gaartay waxaanan sheegi karaa in haweeneyda la dilay ay ahayd haweeney u dhalatay waddanka Maraykanka kuwa dhaawacmayna waxay kala ahaayeen buu yidhi Mark Rowley Australian Maraykan Israeli iyo British laakiin waxa sidoo kale uu ka hadlay qofka weerarka soo qaaday oo looga shakisan yahay wiilkaasi hadda ciidamada booliisku ay xireen oo asalkiisu Soomaali yahay waxaana uu yidhi The suspect is a Norwegian national of Somali origin. I stress, though, that all the work we have done so far... qofka aynu ka shakisannahay waa Norwegian laakiin asalkiisu Soomaali yahay waxaanse ku nuuxnuuxsanayaa shaqada ilaa hadda aanu qabanay in aanay muujinayn in arrimahaasi ee asalkiisa la xiriira wax shuqula aanay ku lahayn ujeeddada ficiladiisa wiilkaasi waxa uu intaasi raaciyay in ilaa hadda aanay hayn ciidamada booliisku wax caddeeno oo muujinaya in la duufsaday si xag jirnimo ah. I emphasize that so far we have found no evidence of radicalization that would suggest that the man in our custody is in any way motivated by terrorism. waxa uu yidhi ilaa hadda ma hayno wax caddeeno oo muujinaysa in ninkaasi aanu hayno ay markaasi dhiirigeliyeen amaba lagu ilduufsaday argagixisnimo laakiin ciidamada booliisku waxay sheegayaan in qaab kasta oo ay tahayba ay qiimeynayaan xaaladda meeshana aanay ka saarayn weerar argagixiso sababtoo ah shalay unbay ahayd markii cismaan oo ciidamada booliisku ay sheegeen in ciidamo hubaysan oo dheeraada magaalada London ay keeneen kadib weeraradii argagixiso ee ka dhacay dalal dhowra oo ku yaala qaaradda Yurub Norwegianka iyaguna booliiskooda oo hadlay waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in wiilkaasi Soomaaliga uu ka soo guuray waddanka Norway 2002 isla markaana ay gacan ka siinayaan ciidamada booliiska ee London weerarka markii xalay uu dhacay duqa magaalada London Sadiq Khan oo isagu fasax ku jiray ayaa fasaxiisii soo afjaray waxaana la filayaa daqiiqadaha soo socda in isna shir jiraayad uu qabto oo uu ka hadlo arrintan waxaana dadka reer London ugu baaqay in ay istajiyaan oo xaaladana ay la socdaan oo ay feejignaadaan